الحمد لله رب العالمين. قولوا كان أركيسان عن فيلايو إنجيركو إنه وحي ورها أو إنه يدكسي دسبدي سوحي تهاي وحي كوبن تهاي إنه إنجيركو يديسي عن فيلايا. يعني قولوا كانوا أنو لبسنا كور أيام وحن قاصدي إن سوماليا لقدسو هوتيل 5 ستار أو أقلنته هوتيلات عالمية. طبعا كليجز كمفرنا وهذه صد هوتيل نوع أنا لدسو ودك أو نبته له وكيرانا يعني أو هوتيل كلا يبقى هنا دونا دلكو لكن واحد أنا وقانصدي أنا نقد كي كدير هذا إنه باللابو هوتيل ساسا وأباهن لعب حقله أيكون بحيسه إنه بس أيام قانصدي نيروبي أيام أتجي إن لا سوبيو ديساينكا نمن إنجليزا أيام سميين أو يعني أساس كيري هرو يجا سميي لكن مركي أن هلك إمد ولو قالت يسميي ولا تليين إن نن سومالي إسرائيل في أفريقيا إنه لو أمريكا اسمعن أو كتلي إن ضد خبرة وين اللي هو عدانا إن لودي اسمها هذا ربط إنه نجح وعبك بدهن لكن قلبك يجوا مركز كنت أجناي ما دام مالجلين سوماليات مالجلين أيو ذلك إن فلنت الشقادنا أو يشوا لمن سومالي إنجير سومالي إن قاتان أنا وحنقول لي أمسناي ذلك إن الجوجان رد أقون آد أفر بدن أو كل اللي يقول لنا كأقون بدن إن الجوجان أيان أمسناي وأنا صباح دمركي أنت اللي كانوا ورقديه اللي في الشيء الآخرية وحد عادي الإنجيل هذا أو عبد العزيز هذا نقله في عمر أو نقام غني الإنجيل هذا بدنه ماشي سفن إن يقول لنا دنا إن ديسايك وقروح بدنها وفي عينها لكن واحد بدن أي كلمة واحد بدن وباهيه إلا قصح واحد بدن أي كسحين بقول كذا صدق بقول كذا أفرتن إنجيل هذا أي صحي وإنجيل هذا لا هيان لود ديبن اسمه دول جدين نن أن سومالي هين هل هذا إسكندر واحد كلام علمي هل هذا الواحد تلا قفان إنجيل هذا سوماليات أن هين أو قدر صديق حبيرات مجرته ونسيبوناك ووحفي عن أنا يعني شرف إيه إن أنك أنقاتي أو إن سومالي بوجي نيكل أو لكش قيلين إن السيدة أنقو أنصدي إنجيردنا يوفليين وكوان هبين صبح وحي معنا يان هل ساعة قلبت التوميكو ساعة مربري وحي قارن عوض اللحسة يكون قارن مركز شوابكو يجران لحسة يكون قارن هم لا يماي إن أجنبيها إن أنت لقيها لايو هم لا يماي محوها هاي وعهد كبدا بالنسبة لنا هذا جوجلو waxaa iska injiirada iyaga disayaarey dhismadan oo saa'idka waxaa kamid ah hall weyn oo 40 u dhacda 18 sida ay injiiradu loo sheegeen ilaa hadda adduunku ma gaarin 18 mitir oo tiir la'aan ila dhiso adduunku wuxuu taagan yahay 15 rekoorkii waajibiyeen 18 mitir oo caloosha ayaa maanta abgraha ka furayna oo aad arki doontiin hada jaaris dambe dhaqatiin oo ku soo dhaqatiin marka rag la lahay oo la dhaliilayay waxay soo saacidiyeenba cilmi aan wali soo gaarin adduunka inay Soomaaliya ay gaarto ay gaarsiin waxaan kula talinayaa ganacsada aniga hadda ka hor Nairobi yar Soomaaliya wuxuu ka dhisay hotel anoo jooga Nairobi waa iyiri wuxuu yiri fur kaal ii fur hotelka maalintaas waxaan kula taliyay ganacsada Soomaaliyeed oo meel kasta jooga xoolaha ay ajnabiga gelinayaan inay iyagu iska lahayn waxa iska la xoolaha dadka aad maal gelinaysiin ayaa iska leh waxaan ku yiri hadaad ka wada hereeyeen in Soomaaliya wada geynayna ugu yaraan 50% dalka geliya 50% dhulka aad joogtiin geliya inta nabadgelyada aad ka xaqiiqsanaysiin Soomaaliya anigu waxaan kula talinayaa muxuu ahaa ganacsada Soomaaliya oo xoolaha Ilaahay siiyay inay xoolahooda u quuraan dalkooda
dalka hore in markaan leeyahay ha u quuraano waa xoolaha ay iyagu isu quurayaan maayo waxaa dhici karta ajabi haddaad xoolo gelisid subaxa iyo soo kacda adoo milyoneera in subax iyo lagaa soo tarxiilo adoo fakriya aad dalkaaga ku soo dhaqato marka in maalgelinta lagu suubiyo dalka dal walba waxaa dhisa ninkiisa ayaa dhisa in dalka loo geesinimo loo yeesho in la maalgeliyo dalka laga sugi maayo dawla inay ku maalgeliso dawla sharciga ku suubi kartaa amniga ay ku xaqiijin kartaa laakiin maalgelinta waxa iska leh ganacsatada ilaahay xoolaha u siiyay